waxaan jecelahay inaan xaaladaha abaaraha iyo maciishadaha kacay aan si kooban u dul istaago. shacabka reer Somaliland meel kasta oo ay dalka kaga nool yihiin waxaa jira xaalado iyo mashaqooyin isdul huwan oo ay keeneen abaaruhu, isla markaana ay jiraan abaar baahsan oo dadka ku fiday oo saamaysay nolosha dadka danyarta ah ee inta badan ku nool gobollada bari iyo galbeedka. arrintaasi waxay u baahan tahay istaakulayn, in dadku isku dareen noqdaan, in la isku gurmado, in si dhow iyo si dheerba wax looga qabto. waxaa taase dheer oo dalkeenna haysta inay maciishadii kacday oo guryaha dadka danyarta ah barhkood aan dab loo shidin. taasina ay tahay mas-uuliyad weyn oo golaha wakiilada saaran madaxweynaha qaranka, oo saaran qof kasta oo mas-uul ka ah ummaddan oo xilkeeda u dhaartay. waxaan ku baaqayaa inay ganacsatadu il naxariisla ku eegaan dadka danyarta ah ee u baahan in maciishadda loo jabiyo. 30 sano kadib ma aha in dhaqannadii ganacsatadii dhiigmiiratada ahayd ee hal qarni ka hor dunida laga tirtiray ay maanta kuwa la midii kugu dhex nool yihiin, kaa dhex ganacsanayaan, sixirka iyo sarifkaba kuu goynayaan. maantoo kale waa maalintaan odhan jiray ayaamuhu waa wareegto, adduunyadu waa hadhguura, irmaankeeda iyo ladnaanta aadmigu laba goor ma haysto, fakhrigu abtirsiima ma aha. haddaad amin xoola hayso nimcada kula aabba ma aha. baldaalaca ubadka jaarka, agoontiya maxasta baahan, baldaalaca oogadooda siduu aradku uga muuqdo, damiirka haddaad axdiisa dareenka ogaalka siiso, baldaalaca waad ilmayna. hooyada dhaxmaha ordaysa, dheeftii ubad raadinaysa, calaylka madow gudaysa, dhibtii abasada sharkiisa saqdhexe ugu ooli weyday, markay amin dhuuni weydo, agnaanku dareemi waayo, tukaan xamaahin waayo, uurkiiyo qalbiguun ku oyda. xalay toole waxaa daawanayseen mid ka mid a hooyooyinka danyarta ah oo ka cabanaya maciishadaha. waxay ahayd dareen taabanaya qof kastoo damiir leh, waxay ahayd dareen taabanaya qof kasta oo mas-uuliyadi saaran tahay. inkastoo aan arkay wasiir ku-xigeenkii maaliyadda inankan abtiga u ahay habrowdaaganahay ganacsiga muuse salaf oo leh laabsaalax isku xisbi baan nahoo kulmiye. war ummaddani ma aha ummad aynu kulmiye iyo waddani iyo u kala nahay, waa ummad aynu mas-uuliyiin u nahay. wuxuu yidhi abaankii wiil raaxo joogtaa ku dabaalataa webi muba oga wakhtiga dhacay. wixii aynu ka qabannay ee inoo qabsoomay 30kii sannadood ee dowladnimadeenu jirtay marka la barbar dhigo, marka baahiyaha aasaasiga ah ee biyaha leh, ee caafimaadka leh, ee waxbarashada leh, marka la barbar dhigo 30kii sannadood aynu jirnay, waxaa muuqato cad inaan sidii la rabo waxaynu ugu qabsoomin. haddii dadka tabaalaysan laga hadla macnaheedu ma aha in madaxweynaha la diidan yahay, macnaheedu ma aha in guddoomiyaha golaha wakiilada la diidan yahay, macnaheedu ma aha nin xal haysta in lagu xumaynayo. waxaasoo dhanba waxa ka daran oon ka xumahay iyadoo xaaladaha qallafsan ee isdul hoganaya uu dalka ka jiro in golihii wakiilada ee ummaddu soo dooratay ee ay u dhaarteen fasax galay, iyadoon fasaxaasi goluhu wax tashi aanu ka yeelan. guddoomiyaha golaha wakiilada waxaan ugu baaqayaa, mudane guddoomiye, annagoo ixtiraam iyo xushmad kuu hayna, waxaa habboon in fasaxa iyo faakahaysiga waa halkii buunihe aynu kala reebno oo ummaddan waxaynu haynaa waa xeeran, waxaynu haynaa waa inaynu ka doodno, waxaynu haynaa waa inaynu kula xisaabtanno hay-adaha dawliga ah. intii aynu haynay haddii aynu cid kale u hibaynay waa yandar. waxaan leeyahay golaha wakiiladu mas-uuliyadda saaran hoos ha weegaan. fasaxaasi waa mid aan qaban ummadda danyarta ah, waa mid aan munaasib ahayn, waa mid aan xilligan ku habboonayn. shakhsiyan
waxaan aaminsanahay 7 bilood ee golaha wakiiladu shaqeynayay in xeerashii halkan laga ansixiyay ay badankoodu ahaayeen xeerar cididabada ka riixaso oo aanu farta u taaganay annagoon curin dareenka bulshada iyo baahiyaha jira aan ku salaynin ma dhaliilayo mudana gudoomiyaha golaha wakiilada iyo mudanayaasha laakiin maanta ma aha maalintii aynu raaxo tagi lahayn dadkeenu rafaadsan waan ka baxay